kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar channelka ku mahadsanid inaad tahay daawada nagu xidhan like dhasiina share gare si saaxiibadaada ay u gaadhaan waxyaalaha halkan aan kusoo bandhigno hagaag daawadayaal mar kale Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay qof walba halka uu ku soomay Allaha ku nabad yeelo waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin yar oo kooban waxayna ku saabsan tahay hadal muran dhaliyay oo dhawaan ka soo yeedhay mid ka mid ah wasiirada ugu cadcad xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu hadal adayga badan marka loo eego xukuumadda xilligan jirta dhawaan waxa uu ka dhawaajiyay hadal inta badan aragtiyo kala duwan ka dhexdhaliyay mas'uuliyiinta dowladda shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan caabuqa coronavirus waynu ognahay inuu yahay mid saameyn badan leh ayuu ka hadlayay wuxuuna tilmaamay in qof kasta oo magaalada tan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku dhinta loo diiwaan galiyay ama dowladda federaalku ay u aqoonsan tahay inuu u geeriyooday sabab la xiriirta caabuqa coronavirus arintani ayaa noqotay mid su'aalo badan la iska weydiiyo dadkuna badi waxa ay saareen calaamado su'aal halka ay jiraan qaar taageeray hadalkaas oo tilmaamay in Soomaalidu aysan ahayn kuwa aad u jilicsan oo sheegay dhibaatooyinka soo wajaha balse ay yihiin kuwa jecel inay qarsadaan dhibaatada kadib hadalkaasi maalmo kadib waxaanu muuqaal baahiyaha la dhex qaadnay shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxayna aragtiyo kala duwan ka dhiibteen hadalkii wasiir Maareeye bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xasan Cabdi Mire waxaan ka hadlayaa ra'yigayga oo ku cabirayo wasiir Maareeye Maxamed Cabdi Maareeye oo yiri qof walba oo u dhinta Muqdisho wuxuu u geeriyooday coronavirus wasiirka waxaan u sheegayaa qof walba ajal ayuu u dhintaa cudurkan corona ilaahay ayaa keenay qof walba ilaahay ayaa dila marka waxaan leeyahay ra'yigayga ku cabirayaa wasiirka waxa uu hubsanin inuu yiraahdo corona ayaa dilay taasi Soomaalidu waa ka soo horjeesatay corona waa cudur dunida aad u gilgilay oo wadamada naga dhaqaale badan oo aad u saameeyay Soomaaliduna way taxadir badan tahay oo inkastoo dawladda ay la tacaalayso cudurka corona marka fikradda inuu yiraahdo qof walba oo Muqdisho ku geeriyoodo waxa uu geeriyooday coronavirus taasi wasiirka waa ku cambaaraynayna anagoo dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan leenahay qof walba ajal ayuu u dhintaa cudurkan cudur ilaahay keenay waaye sida daraadeed ra'yigayga halkaas aan ku soo koobayaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ardaay Xasan Dheere markaan ka hadlo arrintan wasiirku sheegay in qof walba oo dhintay loo aqoonsado inuu coronavirus u dhintay cudurkaas COVID-19 oo sababo taas waxay la tahay inay taariin oo maxaan ku raadayay ka badbadisa ama maxaan ku raadayay war aan laga fiirsanin aragtida marka la fiiriyo maxaa yeelay waxaa jira dad badan ayaa maxaan ku raadayay dalkeena ku dhinta oo sababo kala duwan u dhinta hadda xalay ugu dambeysay ilaa hadda maanta dad oo waxa la soo sheegay isdagaalayo oo ayagu israasaynaya dhintay marka waxaa kaloo jira dad jirooyin kala duwan oo maxaan ku noocyo kala duwan u dhimanaya oo habeen u dhinta maadaama heerka caafimaadkeena uu aad u hooseeyo marka haddii aan ka soo qaadan in qof walba oo dhinta maxaan ku raadayay cudurkaasi COVID-19 waxa waaye arrin aan loo meeldayn oo shacabkiina aan loo turin ama aan laga naxaynin baxaalkooda iyo meeshii la daaweyn loo raadi lahay niyadda loo deji lahay ayaga maxaan ku raadayay leeyahay canaan aan maxaan ku raadayay suurtagal ahayn korkooda la saarayo marka wasiirka waxa habboonaa lahayd inuu marka hore xaalkiisa qiimeeyo xaalad dalkan uu qiimeeyo gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dadka ugu badan ay ku nool yihiin dad aad u kala heer duwan ay ku nool yihiin ilaa xadna dalka matili karta inuu aad uga fiirsado hadalkaas ahayd marka waxay ila tahay inuu maxaan ku asaguna dib isu sixi doono waana rajeynayaa inuu maxaan ku raadayay hadalkaas uu ka fiirsado oo uu yiraahdo raadgelin ka bixiyo waxaan rabaa inaan ku daro maxaan ku raadayay dadka u jirta dhan kale dhimashada iyo dadka uu soo ridanayo cudurkan COVID-19 ee magaalada in aad u kordhayso magaalada Muqdisho waxaan aad uga walwal qabaa in dadkii wali aysan maxaan ku raadayay wacyi ahaan u bislaan cudurkan jiritaankiisa
iyo maxaan ku raadayay xaaladda iyo siduu noo saameynayo marka waan qiraynaa maxaan ku raadayay in dad badan ay u dhimanayaan weliba ayagoon soo gaarinin maxaan ku raadayay xarumaha caafimaadka dad badan oo ku dhacayaan rumaysan anigu ka shaqsi ahaan marka in dadkaasi sidii lagu gaari lahaay oo lagu qanci lahaa in isbitaalka gaar ahaan la cilaamiyay Martiina iyo kuwa kale loogu talagalay tagaan in baaritaanka la ballaariyo ayaan taas ka haboonaa lahayd si dad badan u soo baxaan cudurka in la xakameeyo oo dadkana aad loo wacyigeliyo dadkii maxaan ku raadayay kalsoonidii kuma qabaan maxaan ku raadayay hay'adaha dawladda maadaama ayna maxaan ku adeegyo hore u qabin marka in laga fikiray ahayd in maxaan ku raadayay si dad kalsooni loo geli lahaa ماشي محن كرادا عنان علوم بلدين محن كرادا دتك لو جيدي لهاي marka waxaan jeclaa lahay in laga fikiro si dadka loogu bislay lahay inay aaminaan in cudurkan cudur jira uu yahay oo dilaa ah oo dadka leeynaya ayna ka fikiraan sidii uga badbaadi lahaayeen waxaan ugu baaqaa inay qof walba is ilaaliyo oo intuu is ilaali karo soo dadka asna cudur u gudbin asagana aan loogu gudbinin maxaa yeelay waa khatar oo cudurkan annaga ayuuna leeynayaan barnaamijkaas aad igala hadashay oo ah dhimashada badan ee xamar ka socota anigu markaan dhageystay hadalkii wasiiradda caafimaadka iyo hadalkii wasiir maareeye iyo hadalkii duqa magaalada iyo maareeye fikirkoodu waa isku dhawaa sax buu ahaa waa isku dhawaa fikirkoodu laakiin anigu caddayn baa ma haya qabuurahan tegey kuwa balcad agteeda ku yaal baan tegey oo jimcadii dhoweed jimcadii ka horreysaan tegey dadka taagnaa meeshaas oo waxaasayay 500 oo qofood waa ka badnaayeen dadka Soomaalida taagnaa oo rag iyo dumar rag meesha jooga markaa wareystay waxay ii sheegeen jimcadaas annagu waxaasayay jimcadii ka horreysay 42 qofood in la keenay meeshan xamar marka waxay leedahay dhowr meelood oo wax la geeyo oo macallin nuur qabuuraha macallin nuur dhinacan kale oo kaxda iyo meeshaas kale oo dhinaca balcad xaggeeda ah oo hadda cusub oo numberka anigu aan arkay uu marayay 1485 ninka aan geynay meesha anagu aan soo aasnay Soomaalidu marka waxa saad la socotiin waa inkirayaan cudurka corona wax jira weey waxa dadka leynayaan waa asaga haddii aan u laabto hadalkii maareeye oo uu yiri wixii annaga dhintaan corona xisaabsanayna hadalkiisu sax weey sababtoo ah wuxuu sax ku yahay wasiirka hadalkiisu wuxuu sax ku yahay majority baa la raacaya haddii 20 qofood 30 qofood 50 qofood 45 qof la geeyo maanta qabuuraha oo ay shantu yihiin wax cudurro kale u dhintay 40 qofood corona u dhintay run weey qofka dhiikarka qaba qofka sokorta qaba qofka neefta qaba qofka balwada lahayo qabriga iyo balaayada cabi jiray dadka waayeelka ah dadkaas u badan yahay maareeye hadalkiisu sax buu ah dadka Soomaaliduna waa inkirsayin cudurka waxaan soo jeedinayaa in tusaalooyinka dawladda la raaco wassalaamu calaykum waraxmatullah magacayga Cabdiraxmaan waaye arrintii wasiirka ku saabsaneed cudurka macnaha qof walba oo dhintay inuu dhintay coronavirus ka hadda socdo taas waxaan qabaa mid ka duwan weli dhimashada waa halkeedii walow laakiin inta ugu badan maanta dhimashada caalamka waxa ka dhacayo oo dadka ay u dhimanayaan ama cabsida weyn laga qabo ay tahay cudurkan COVID-19 ama coronavirus kala leeyahay dadkana waa weli waa looga cabsi qabaa macnaha waa taxadirada ay bixinayaan wasaaradaha caafimaadka iyo dadka waxgaradka macnaha in la raacana muhiim ay noqoto bismillaah magacayga waa Abuukar Absaaq Cabdullaahi ku magac dheer Abuukar Cadaani Qosjaawi niyo hadaan ka hadlo wasiirka warfaafinta hadalku soo jeediyay oo ahaa qof kasta wuxuu dhimanayo coronavirus niyo taas waa wasiirka ku qaldan yahay wasiirkeenu waaye laakiin inuu saar ka dhamo fiicneen waayo naftan mulkumood bay leedahay corona horta dhiman jirnay aysan dhimanayna qof kasto macnaha Soomaaliya joogo haddii taa u dhinto malaria taa u dhinto corona u qorayna waxa la argixisay shacabka argixisanayo way hadalka aad baan u xunnahay wasiirkan ka noqdo loo baahan yahay Soomaaliya waan nahay cudur soo aragnay shumbiyod malaria kuzudiye kullu soo aragnay Soomaaliya cudur mamnuuc baanak baan macna marka cudurkan Ilaahay baan ay baadinayo mareen waaye laakiin soo wadada ku ahaad uma ahaanag wadada tanaanay ku ahli oo aragtay waa maqashay marka waa wasiirka waa aad macna hadalkaas ugu fududahay السلام عليكم magacayga waa Diiwaan Geela Xasan magaca wasiirka hadalka ka soo yeeray inuu aad iyo aad u qaldan yahay aaminsanaa fikrad ahaanteeda sababtoo ah dadkan hadda la leeyahay maalin walba boqolaal qofood dhiman jirtay
haddeertaani dadka inay xisaabaan ay keeneen dadkana qof walbaba qofba si uu dhiman karaa ani hadda xaafadeyda dad badan oo maalin walba oo dumar oo ku dhintaana jiraan ilaa haddeertaana qof macnaha coronaviruska calaamadihiisa oo ka muuqda ma arkin aniga faham marka warka uu sheegayo inuusan run ahayn aaminsanahay ani ahaanteeda qalada u arka hadalkiisa sababtoo ah dadkan weligood ay dhiman jireen haddii la xisaabi lahaa intaan in ka badanaa dhima lahayd hadda 500 oo sheegayo intii haddii awal la xisaabi lahaa ka badanaa dhima lahayd macnaha intaas maxaa ka keena la sheegay xoogaa macnaha adduunyadan qof walbaba dakhli raadis waa moogtaadi marka qofkan hadduu dakhli raadinayo wax walba macnaha waa oo rabo waa uu ku hadli karaa macnaha fikradiisa waxay noqotay sidii lacagtaas macnaha loo ballan qaado oo ku gaari lahay marka waxaa macquul ah xataa in dadkaas hadda uu sheegay aysan dhiman oo asaga tira buuxsanayo dad yar inay dhinteen oo asaga tira badan oo iska qoranayo way dhici kartaa si oo danta uu leeyahay uu gaaro macnaha waa jirtaa dhimashadu waa badan tahay maalin kasta waan aragnaa dhimasho maalin dhexdaas nin adeerkii ayaa dhintay waxaa ku soo duugnaa baydhaxan meel la yidhaahdo baydhaxan oo jasiiro ka soo sokayso inta qof oo noogu horeysay ma malaysan kartid ma fahant marka waa jiraan dhimashada waa badatay saa'id 14 maalin dhimasho saa'id aan aragna ها وأمين سنة حيا القف كستور دنتو مركان ورست الله ونحرست يا واي أديركي واي مسأبوه واي مسأبرتي واي وحكولين نخس ودنت أما سو جيفي هالمرة لوسو بود ودنت marka waa aaminsana inuu COVID-19 Muqdisho ah waa hagaag daawada waan filayaa inaad soo aragtay dhammaan aragtiyihii kala duwanaa ay qabeen dadka ku nool Muqdisho waan filayaa adigu inaad tahay qof naga mid ah isla markaana qaba aragti gaara fadlan qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtidaada ku saabsan hadalkaasi muuqaalkan la wadaag haddii ay jiraan saaxiibaad is leedahay iyaguna su'aalo ay isweydiinayeen waad ku mahadsan tahay inaad tahay qof nagu xidhan balse haddii aanad hore uga mid ahayn saaxiibada channelkeena nagu soo biir oo subscribe inoo saar channelka